kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Qodobadan maanta barnaamijkeena ku soo qaadi doonana waxaa ka mid ah madaxweyne Farmaajo oo go'aan adag ka qaatay arrinta ciidamada lagu weysan yahay Eritrea iyo war lama filaan ah oo laga helayo Eritrea oo ciidamadaasi haysata. xogtii ugu dambeysay ee kulan dhexmaray ra'iisul wasaare Roble iyo musharaxiinta mucaaradka madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo aqbalay dalab uga yimid madaxweyne Farmaajo iyo wasiirka arrimaha gudaha maamulkaasi oo la soo celinayo. wararkeena kalena waxaa ka mid ah magaalada Hargeysa ee Somaliland oo mayor cusub yeelatay iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ku dhawaaqay. qodobadaas ku faahfaahin doona barnaamijkan insha Allah waana subax isniin ah 14 bisha 6 ee June sanadka 2021. barnaamijkan wararka Soomaaliya oo midaan ku soo gudbinayno dhammaan dhacdooyinka dalka. haddaba daawada ka qayb qaado dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara. waad ku mahadsantihiin taasna la fahantaan fadlan la faafiya wararkan oo gaarsiin saaxiibadiina adinkoo ku sheer garanaya baraha bulshada. mahadsanidin. aynu ku bilowno wararkeena. warar lagu kalsoon yahay oo helay warqad TV ayaa sheegaya in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka fakarayo inuu qaado laba tallaabo midood si uu uga jawaabo arrimaha la xiriira dhalinyarada ku maqan dalka Eritrea. dhalinyaradan ayaa dalka ka maqan in ka badan 2 sano waxaana dhowaan xoogeystay wararka sheegaya in laga dagaalgeliyay gobolka Tigray ee dalka Ethiopia inkasta oo dawladda ay arrintaasi beenisay. warar aan helayno ayaa sheegaya in villa Soomaaliya ay wado qorshe ay ku qaadayso wariyaal ka soo warrama xaaladda dhalinyaradaas maadaama aysan awoodin dawladda Soomaaliya inay dalka ku soo celiso. tallaabo kale oo laga fakarayo ayaa ah in iyana madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu qorsheynayo inuu tago dalka Eritrea isla markaana uu la soo kulmo dhalinyaradaas oo uu wax ka qabto cabashadooda iyada oo ay socdaalkaas raaci doonaan saxafiyiin ka tirsan villa Soomaaliya. dawladda Soomaaliya waxaa lagu leeyahay lacagtii lagu tababaray dhalinyarada mana haysato hadda mana jirto cid soo siinaysa caruurtaas hadiiba ay nool yihiin balse waxaa ka go'an in ay wado wariyaal taageersan dawladda ama kuwa madaxtooyada isla markaana uu tago Farmaajo ayuu yiri sargaal ka tirsan xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ee villa Soomaaliya oo la hadlay warqad TV. khamiistii iyo jimcihii waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay barnaamijyo looga soo horjeeda madaxweyne Farmaajo kuwaas oo ay dhigeen qaar ka mid ah waalidiinta Soomaaliya oo ay ka maqan yihiin caruurta loo qaado wadanka Eritrea. sidoo kale waxaa jira guddi waalidiinta ka socda oo la sheegay in dacwad ka dhan ah madaxweyne Farmaajo ay u gudbiyeen xildhibaanada iyo siyaasiyiinta matala si ay ugu sii gudbiyaan hay'adaha garsoorka oo arrintaasi qusayso. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wajahaya cadaadis badan oo ka dhashay wararka ay soo taraya ee dhalinyarada Soomaaliyeed ka soo baxaya iyadoo waalidiin badan ku nool magaalada Muqdisho ay walwal dareemayaan. dhinaca kalena dukumiintiyo muqaabaraad ama sirdoon oo si gooni ah aynu u helnay ee lagu kalsoon yahay laga helay ayaa soo bandhigaya macluumaadyo dheeraad ah oo ku saabsan askarta Soomaalida ah ee ku maqan Eritrea. xogaha ku jira dukumiintiyadan ayaa waxaa ka mid ah in 4 mas'uul oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ay waqtiga ugu badan ku bixiyeen hawshan. 3 ka mid ah shakhsiyaadka ay sida weyn arrintan ugu lug leedahay ayaa waxaa ka mid ah agaasimaha NISA Faadi Yasiin Xaaji Daahir iyo ku-xigeenkiisa Cabdullaahi Kulane oo madaxweyne Farmaajo aad ugu dhow. sidoo kale warqadaha sirta ee dukumiintiyada ay la helayo ayaa muujinaya shakhsi lagu magacaabo Cabdirasaaq Maxamed Xaaji Maxamuud oo isaguna la sheegay in arrintan uu kaalin weyn ku leeyahay. Cabdirasaaq oo muddo dheer ku noolaa xiriir weyn la lahaa sirdoonka Eritrea isla markaana ay u dhaxdo haweeney u dhalatay wadankaas ayaa la rumaysan yahay in sidoo kale uu tababaradaas iyo askarta halkaas loo diray uu gacan ku lahaa. isku dayo ay kala duwan oo aynu la sameynay dhinacyadaas ayay noo suurageli weysay inaan jawaab ka helno gaar ahaan Cabdirasaaq. macluumaadka dhanka sirdoonka ee aynu helnay ayaa waxay muujinayaan in arrimaha ugu badan halkaas loo geeyay dhalinyarada ay ahaayeen in ay tababar dawladda Soomaaliya ay ciidamada si gaar ah u siinayso ay ku soo qaataan. laakiin waxaa la sheegay in xaaladdu ay si kale isku bedeshay markii la soo wariyay in dhalinyaradaasi ay nolol adag ku sugan yihiin qaarkoodna laga qayb galiyay dagaalada ka soconaya wadankaasi gaar ahaan dalka Itoobiya.
waa hagaag warqaad t v ayaad naga daawanaysaan barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya ayaynu ku guda jirnaa. xubno ka socda midowda musharaxiinta ee mucaaradka ah iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha mas-uuliyiin ka socda ayaa waxay ku kulmeen magaalada muqdisho. kulankan ayaa xogo dheeraada laga helayaa. waxaa kulankan looga hadlay arrimo la xiriira guddiyada doorashada. xubnaha ugu badan ee kulanka ka qayb galay waxaa ka mid ahaa xisbiga wadajir xubno ka socda, waxaana dood ugu adag laga istaagay qaar ka mid a xubnaha guddiyada ee la sheegay baaritaanka lagu sameeyey in lagu waayo wax dembiye ah ama in ay aadihii loo jeediyey ay ku lug lahaayeen. si kastaba waxaa la sheegay in arrintaasi ay noqotay mid aada markaasi doodeedu ay u dheeraatay. ila ka qayb galay kulankii dhacay saacadihii lasoo dhaafay ayaa waxa ay sheegeen in mucaaradka qaarkiis gaar ahaan xisbiga wadajir ay aada uga soo horjeesteen ra-iisul wasaare Roble qaabka baaritaanka ay u sameeyeen, iyaga oo sheegay in xubnaha dooda laga qaba la wada bedelo ama sidoodii hore lagu soo celiyo. waxa uu hogaamiyaha xisbiga wadajir horaan sheegay in uusan ku qanacsanayn habka ay guddiga uu ra-iisul wasaare u xil saaray ay u baareen arrintan. si kastoo ay ahaato xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya ayaa weli kacsan iyada oo guddiyada doorashada aan lasoo dhammaystirin. maamulka galmudug ayaana laga sugayaa inuu soo magacaabo guddiga doorashada oo ah maamulka keliya uu ku dhiman yahay. haddii guddigaas uu soo magacaabo madaxweynaha galmudug, ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa warqad dhammaystiran kusoo saari doona guddiyada, kadibna waxay guddiyadu aadi doonaan tababaro iyada oo hawsha doorashooyinka sida ugu dhaqsiyaha badan loo gudageli doono. dhinaca kalena madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qorqor ayaa aqbalay dalab uga yimid madaxweyne farmaajo oo ku saabsan wasiirka arrimaha gudaha ee maamulkaas. madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qorqor ayaa ogolaaday in cabdiwaayeel oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka galmudug oo uu xilka ka qaaday madaxweyne ku-xigeenka uu shaqadiisa sii wato islamarkaana uu sii ahaado wasiirka arrimaha gudaha maamulkaasi. madaxweyne farmaajo oo ay aada iskugu dhow yihiin wasiirka arrimaha gudaha maamulkaasi galmudug ayaa madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qorqor ku cadaadiyey in hawsha xilka qaadista aysan u dhicin sidii la rabay. madaxweyne axmed cabdi kaariye qorqor ayaa xubno ka tirsan maamulka galmudug oo uu kula kulmay muqdisho u sheegay in xilka qaadistii uu sameeyey madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug aanu ahayn mid sharciga waafaqsan, islamarkaana uu shaqo geli doono wasiirkii arrimaha gudaha ee xilka laga qaaday. wasiirka arrimaha gudaha galmudug cabdiwaayeel ayaa xilka looga qaaday kadib markii golo deegaan uu magacaabay degmada balanballe, taas oo keentay in dagaal iyo gacanka hadal uu ka dhaco isla magaaladaas. ugu dambeyntiina haddii aanu fiirino dhinaca iyo somalilan, magaalada hargeysa sidaad la socoteenba waxaa ka dhacday doorasho meeyarka magaaladaas golayaasha deegaanka ee soo dooran lahaa lagu doortay. 17 xubnood oo golayaasha deegaanka matali lahaa golaha deegaanka matali lahaa ayaa la doortay. waxaa musharaxiinta ugu cadcad ay ahaayeen cabdikariin axmed muuge iyo sidoo kale meeyarkii hore ee magaalada hargeysa. madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi ayaa ku dhawaaqay in cabdikariin axmed muuge uu noqon doono meeyarka magaalada hargeysa ka gadaal markii meeyarkii hore ee magaaladaas uu tanaasulay. khamiista ayaana loo badinayaa in loo dhaariyo cabdikariin muuge inuu noqdo meeyarka cusub ee magaaladaasi, ninkaas oo codadkii ugu badnaa kusoo baxay doorashadii dhowaan ka dhacday somalilan. golaha deegaanka ee hargeysa loo doortay ayaa kulanka ugu horeeya yeelan doona khamiista, kadibna waxa ay si rasmi ah oo cod aqlabiyad ugu dooran doonaan meeyarka magaalada hargeysa cabdikariin muuge. dhammaan musharaxiintii kale ayaa u tanaasulay. cabdikariin muuge oo ah nin dhalinyaro ah ayaa waxa uu ololo ballaaran ka sameeyey hargeysa, waxaana uu ka socdaa xisbiga wadani. waxaa laga cabsi qabaa in haddii cabdikariin muuge uu kusoo bixi waayey meeyarka hargeysa in magaalada fidqalalo iyo rabshado ay ka dhacaan, laakiin madaxweyne muuse biix cabdi ayaa arrintaasi ka hortegay si aan u dhicin, waxaana uu sameeyey in uu reebo musharaxii xisbiga kulmiye u sharaxna oo ahaa meeyarkii magaaladaas muddada dheer soo maamulayay. intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeena wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya. tan iyo kulantadeena dambe saaxiibayaal, barnaamijka lamid ah waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo, kulanti dambe oo xiiso leh.